السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نقد wanaagsan dhamaantiin meel kasta adduunka ka joogtaan. daawashada muuqaalkan kadib fadlan ka iloobin subscribe UK Films and Vlogs gambarelkana furasay ku soo gaaraan update-yada cusub. ka iloobin like, share and comment. mahadsanid. mar walba dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay waxay idin tahay wanaagsan. inta kadib muuqaalka maanta idin sida waa ka duwan yahay muuqaaladii hore. waa gabar Soomaaliyeed oo ku dhiban mid kamid ah xabsiyada dalka Liibiya. heestana mid kamid ah magafayaasha ugu xaasiisan dunidan. magafa waa Ilaahay. inta kadib gabadhan codkeeda ayaa si isdaba joog iyo muuqaalo ayada laga soo duubay oo loogu soo diray hooyadeed oo ku nool Soomaaliya gaar ahaan magaalada Afgooyo ee gobolka Shabeellaha Hoose. inta kadib hooyada ayaa runtii video soo duubtay iyadoona baraha bulshada qeybo kamid ah aynu ka helay isla markaasna ku cataabaysa in gabadheeda wax loo taro ayadana halkaasay ku dhibantaa gabadhu isla markaasna ay madaxa ay xabad kaga dhufteen. muuqaalkeedii ku soo wajahan waa gabadha oo ka sheekeynaysa xaaladda meesha ka jirto iyo sida ay tahay. daawashada muuqaalkan haddaad aragto runtii damiir Soomaaliyeed iyo qalbi jilca ayaad yeelan doontaa. bal soo daawa muuqaalka. alla waa xanuun. waa gabadhi oo la garaacay isla markaasna usha ay ku socoto hadlayso oo aysan kala joojinayn. jirka ayaa la qabsada xanuunka. wallaahi waan ka damqade. ha ahaatee hooyadeed ayaa loogu soo dirayaa moobeelka cod laga soo duubay gabadha si ay u aragto xanuunka gabadheeda. weliba gabadhu madaxa ayaa xabad looga dhuftay. bal hadalkan oo WhatsApp-ka loogu soo diray oo ay gabadheeda laga soo duubay bal ila dhageyso. السلام عليكم. أنا أمد الصومالية waxaan ka codsanayaa aniga waxaan ku xanimanahay gabar Soomaaliya waxaan ku xanimanahay Liibiya meel xun aan ku jiraa godka 17,000 ayaan ku xanimanahay ayaan ku xiranahay. umada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan aniga xabad ayaa ugu socoto waad aragtiin waan xiranahay saas oo dhibaataysanahay. midda kale waxa idin sheegay aniga waxaan haystaa 8 maalin oo qor ayaan haystaa 8daas maalin haddana waxa la iga soo diray aniga waan dhimanayaa because ana 2 maalin jooga xabad la igu dhufto madaxa la iga dhuftay macaada la iyada 8 maalinta la ii qabtay haddii ay dhamaatana aniga waqtiyamkayga oo dhamaadana xabad ayaa la igu dhufanayaa. ninka waxmana ma qoro waa qolada mucaaradka oo hadda ka soo horjeeda dawladda Liibiya kuwaas ay haystaan. waa idin bariyaa umada Soomaaliya waxaan ka codsanayaa sida oo naxariista leh in ay iga wadbaadiyaan cadawga gacantiisa aan ku jiro. waarid waa beer wax dhalay weliba hooyo kuma sii jirto. allo hooyooyinkeena xifdi. hooyo ayaa kilibkan iska soo duubta ayadoo la hadlayso Soomaalida meel walba ee dunida ka joogto 5 qaarad. gaar ahaan waxaan si gaar ah aan hadalkan u leeyahay dadka maanta mas'uuliyadda ay ka saaran tahay in ay gabadha iyo dadka la midka ee Soomaalida ay dhiban madaxda u ah. bal hadalkan hooyada dhashay gabadhan ay baraha bulshada la soo geliyay bal ila daawo. maan rixin allah sallallahu alayhi wa sallam walaalayaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan dhibaatadaas oo ah gabadha aad aragteen ee uu dilaayo ninka aan arxanka lahayn oo naxariista lahayn wuxuu ka naxaaya lahayn oo saad aragteen uu garaacayo yaani iga dhibaataysan Liibiya iyo xiran tahay waxaan awoodo waxaan sii kara ma waxba kama furan karo waxba kama baxsan karo. intaasay ku jirta 2 sano ay ku jirta 2 sano ku jirta kii hore markuu iska sii daay ku kala qabsada horta Ilaahay u gali oo xabad ku dhiftay
ilaahay subxaana watacaala ha ka soo furdaansho ayadana way dhiban tahay anna waa dhibanaha ummaduna ilaahay subxaana watacaala ha ka qaado dhibaatada ay ku jiraan allah ka bixi ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaa ummadda in balaayada socota ilaahay mootiyo ilaahay subxaana watacaala ummadda duufaantaa mootiyo walaalayaalo walaalka soomaaliyeed gacan jabtaa lagunay dhex taalla walaalayaalo waxaan rabaa inaad caawidaan inaad caawidaan ilaa muslimiinta inaad caawidaanaan rabaa muslimiinta inaad caawidaanaan rabaa muslimiinta inaad caawidaanaan rabaa halle caawiyo caawimaan u baahanay halle caawiyo hooyo soomaaliyeed ah iyadana gabar soomaaliyeed waa halle caawiyo halle caawiyo halle caawiyo ummadday halle caawiyo dhibaataysan tahay abarlaadsaa dilaa u qoran maalin walba iyadoo la dilaayaa la soo tuuraa ilaaheeday qabtaa allay leedahay nolol allay u leedahay gerina allay u leedahay kama celi karo bise hallayla qaybsado dhibaatada ay haysata maanta ay haysata hallayla qaybsado muslimiintu ayla qaybsadaan insha allah muslimiintu waxaan ka codsanaa ka baryaa oon cod dheer iyo cod gaabanba ugu dira inay i caawiyaan oo ilaahay dartiis bisha ramadaan darteed ii caawiyaan oo ilaahay ii caawiyaan ilaahay dartiis ii caawiyaan ilaahay dartiis inay ii caawiyaan insha allah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran in ay gabadha ay caawiyaan isla markaasna hooyada Soomaaliyeed ay laabto oo qaboojiyaan si gaar ah waxay fariinta ugu socotaa dadka madaxda u ah Soomaalida gabadha waa gabadha madaxda u tihiin si xushmad leh waxa idinkaga codsanaynaa in aad degdeg waxaad ugu qabataan fadlan haddii muuqaalkan ku soo gaaro share garay si ay u gaarto madaxda iyo dadka wax gala adigaso waxaad ugu heelin kartaa dhaqaale iyo ducaba ku dir lacagta nambarka hoos ku qoran oo iska leh gabadha hooyada dhashay mahadsanidin muuqaalkan la meenta ku kulmeyno nabadino